loo isticmaalo dabcan dhibrasesha baa ku dhaca ama dhibaato dad qalaadada imika de wareejinta ku badiso 24 saacadood ka damin weyda waxaad sibirkaad ku walaaqayso waa iska macruuf in culays ku dhacayo marka 12 bilood bil la nasiyo dheefshiidkii cunadiina laga yareeyo waxa uu faa'iideynayaa khalkhal badan iyo culays badan oo qofka ka haystay hadmiga iyo dheefshiidka uu ka nasanaya waliba dadku iskuma jiraan dadka qaar kood baa suul hadmi leh dheefshiidkiisu daciif yahay dadkaas oo kale aad buu saacidaa waa se goorma waa marka cunada laga yareeyo xigmada uu nasanaya waxa hadii cunadii la yareeyo hadii soomkii la sii badiyaba ka waran cunada oo hilib midhan iyo wax wada shiilan oo aad u fara badan oo keenaya qofku isagoo gaajo ka cararay inuu habeenkii aad u isu dibiriyay daca qurmo de waxba faa'iido soo kordhimayso dheefshiidkii uu sii kadeedmaya alla warkuma la sii qabtaa waxba uma soo kordhin marka raaxa uu helayo dheefshiidku waa marka nidaamkii loogu talagalay cunada yareynteeda uu ku socdo qodobka saddexaad waxa ilaahan asiyaamu yusaacidu ala ilaaj aliltihaab alxasaasiyatu walmafaasil waxaan la yidhaha infection kee markay la shaybaarka la yidhaahdo infection baa ku hay waxyaabaha yareeyuu ka mid yahay iyo xasaasiyadda maqaarka iyo mafaasisha rheumatismka ugu wacan yahay waxyaabuu ilaahay ku yareeyuu ka mid yahay waxay yidhahdeen siyaamku yusaacid calaa khafdi mustawa sukari fi dam dheelitirka dhiigga xagga sonkorta aad buu uga saacidaa qofka bani aadamka ah soomku sidaa daraaddeed dadka sonkorta qaba faa'iiday ka helayaan wey khaamisan marka shanaad mufiid limarad irtifaaci daqdi dam licadami tasalub الsharaayiin walixarqi الduhuun soomku waxa uu qofkii ka saacidayaa oo kale dhiiggii kacayay leanna waxaa la ogsoon yahay markuu qofkii gaajoodu soomo waxaa gubanaya colesterolkii saddexdiisii nooc iyo ama yaraanayo dheelitirmaya iyo xididadii uu buuxinayay xaydhu ay buuxinaysiiyo suwagu si kalun bay u dhigaan qoladan faa'iidada ruuxda ka warramaa waxay yidhahdaan soomku wuxuu xordaayo bay yidhaahdaan culimada markay ka warramayaan riyaadada iyo carbiska uu leeyahay soomku riyaadada ruuxiga ah wuxuu xordaa bay yidhaahdeen xididada oo wuxuu ka saaraa ibliiski bahalkii shaydaankii la yidhi xididadu maray xadiidka waxaa ku sugan nadiga ina shaydaana yajri min ibni aadama majra dam markaa xididadaasuu ku cidhiidhiyaa ama ka buufiyaa shaydaanka bay yidhahdaan culimadu kuwana si kale u dhigeenoo iyaguna waxay yidhaahdeen subagii xididada intuu ku urura gidaarada ku dhegayay ayaa uu soomku yareeyaa gaajada daraaddeed marka xididadii baa si fiican u furmaya dhiigkarkiibuu kaga nasanaya mushkiladahan uu ka mid yahay markaa subagaas waxyaabaha colesterolkaasi maanta laga cawdo weeye kiisa baadhka ama liita siiba oo marka ay xididadaa subagu ka buuxsamo gidaaradu ku dhegayaa kadibna xididkii baa cidhiidhi noqonaya sida qasabaduba inaga aragno markay daxal yeelato biyo badani kama soo dhacaan wadniina wuu garaacayaa wuxuu doonayaa inuu dhiiggii mariyo marka laba mid un baa dhacaysa inuu xididkii qarxo inaga maqalay dee maskaxda dhiig kaga furmo xididkii baa qarxay ama wadnuhu dib ugu noqonaya oo istaagaya labadaa mid un bay noqonaysa waa khatara adduunka u badan wafayaadka boqolkiiba dhowr iyo 30 dhimashada adduunka waa qalbiga iyo wadnaha xididadaa laga buuxiyey sidii wax loo liqliqayo loo cunayay subagu buuxsamayo shaxmigu waxa uu ka soomku faa'iideeyaa yaxfis calaa khasaarati alwasn miisaanka qofku inuu dhinmuu ka caawiyaa liannahu yamnacu calaa takhsiin الduhuun fi اljism jidhka baruurtii ku jirtay iyo xaydhii iyo subagii soomku dib buu u cunaa oo waxaynu ogsoonnahay qofka bani aadamkii cunada inta ka siyaadsan dee uu istoorhgaraynaya intii u baanayd kol hadduu ka kordhiyo jidhkiisa ayaa kaydinaya weliba waxaan faadka la idhaa iyo carbohydrate-ka marka hadday caloosha marbaa kaydkaasi noqonaya
mar wuxuu u gelayaa keliyaha mar wuxuu u gelayaa stoorka barida mar wuxuu u gelayaa stoorka garbaha markaa qofkii kuuskuusyo badan ilaa 5-6 stoor buu iska sitaa qofku oo jirhkiisa waxaana aynu liqliqaynaynu aada u badinayno aada uga dhargaynaa wax sahlan hamoodin hawshiisuu leeyahay sidaa daraaddeed markuu qofku gaajoodu soomo waxay yidhaahdeen hal maalin soomkiisu waxa uu u dhigmaa 9% qofka kaydkiisa inuu cunayo 10% baa kaa dhimanaya ama 9 markaad maalin soontoba marka waxaa la doonayaa inaad miisaankaagii soomka biidni illaahi tacaala aada ku dhinto oo dadka weliba miisaanka ka cabanaya dadkao dhan maahee dad baa jira duruufi haysoo dirqiba ku soomayee dadka miisaanka iyo shirayska iyo kuusnaanta ka cabanaya waa inay ugu talagalaan bisha ramadaan wasnigood inay shushubmaan ay qorqormaan oo haddii 10 kugu zaa'id ahaayeen iyo hadday 15 kugu zaa'id ahaayeen maalin walba 9% buu cunayaa yoomkii waliba u siidaa oo cunada ka yaree oo cunadii habadsanin taasina waa faa'iidooyinka uu leeyahay dad badan oo mushkiladda ka cabanaya soomku asiyaamu yucazizu aljihaaz albanaaci habka difaaca iyo unugyada difaaca iyo askarta difaaca jirhka ilaahay cudurrada uu kaga ilaaliyo ayuu xoojiyaa oo sababtuna waxa ay tahay bay yidhaahdeen qofkii yatbac nidaam ghidaa'i mutawaasin bayna fataraati siyaam hab dheeli tiran buu cunadii u cunayaa waa 3 jeeroo fudfududun maruu in yaroo afuro taabtay intii cashada ahayd iyo in yaroo suxuura 3daa nidaamsani waxay keenayaanay ka caawinayaan inuu hagaago difaacii jirhkiisu iyo askartii ilaalin lahayd jirhka waxay daraasadaha qaar 20 daraasaday sameeyeen waxay dhahaan 5 usbuuc ama 5 wiig qofku eegada waa bisheenii ramadaan bay kusoo dhaweeyeen 5 wiig waa imse cisho 5 wiig waa imse cisho dee 5 ku dhufo waa 35 inagana bil bay ahayd ramadaan markaa waxay idhaahdeen hadduu qofku soomo 5 wiig maalintii walba ama 24 saacadoodba 16 saacadood waxa uu difaacaasi samaysanayaa bikhalaaya jadiida difaaca jirhkiisu unugyo wada cusub buu samaysanayaa yacnii askartii gabowday baa qaar cusub beddelayaan si fiican u tababaran cudurradii oo dhan ilaahay uu kaga difaaco jirhka difaacuna dee waxyaabaha nolosheennu ay ku taagan tahay qofka marka difaacu ka dhinto dee adiga arkaya cudurrada khafiifkaabaa dilaya siyaamka ama soomka faa'iidooyinkiisa waxaa ka mida yusaacid cala atagalubi calaa mushkilaati اlidmaan wuxuu qofka ka caawiyaa mushkiladda la ydhaha idmaanka waa walafka dadka had iyo jeer balwadaha liso kuma walfaan walafku waxa weeye qofkii oo usoo dhareerinaya oo aan naftiiba xakamayn karaynin markuu wixii uu ku balweysna arkay jaadkii sigaarkii khamrigii mararka qaarkood bahalkan kafayga la yidhaahdo waxyaabaha had iyo jeer loo dhareeriyo ayaa lagu daweeyaayoo u xalliyaan marka dadka balwadaha lihi marka had iyo jeer ay soomaan ee ay ka go-aan dee inay ku noqdaan maaha ramadaan kadib ilma haddii naaska laga guriyo miyaa dib loogu celiyaa may waad ka gudhay idmaankiibaa ilaahay uu kaa daweeyey walafkii balwadda jooji oo uga faa'iidayso soomku bay yidhaahdeen arrinta 10aad yaziidu fii hormooni numow dheecaamada keena jidhka koritaanka ayuu saacidaa ee noocyada brotiinka qaarkood ku sugan almas-uuli can wasni اljismi wa quwati اlcadalaati litaxsiini tamhiili اlghidaa'i maadaama cunadiisii habaysanta cunno yaroo isku dheeli tiran ay tahay qofka hormoonka iyo dheecaamada keena muruqyadu inay xoogeystaan jidhkuna uu koro ayaa uu ka saacidayaa soomka qofka markaa kii yaraana dee dhaqsi u kori doonaa kii weynaana kobacunbuu dee u kordhinayo faa'iido markaa waa wax kaa caawinayaba inaad adadkaato koritaankaaguna wanaagsanaado waxaa 11aad ay yidhaahdeen asiyaamu yucazizu wadaa'ifa dimaaq shaqooyinka maskaxda ayaa uu wanaajiyaa daraasadaha qaarkood baa waxay leeyihiin yusaacid fii tadwiiri اlkhalaaya alcasabiya wa tacziizi الsixa almacrifiya unugyadii maskaxdu inay wanaagsanaadaan aqoontii iyo fahamkii qofkuna uu kor noqdo soomku waxbuu ka taraabay yidhaaheen caafimaadka maskaxda
iyo fahamka qofka iyo xifdigiisu wax وصدق الله إلهي باوحي سبحانه لعلكم تتقون مركو صومك عليني كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صوم بالي إذن كواتي بيدينك يوم دي هربا سيا إلهي وقع عبسطان الله كعبس يقول على صومها فايدوينك الروحي كمده لنعك لنا الله كعبس إلهي وحلو واتقوا الله ويعلمكم الله إلهي كعبس علمي أهشان مركا معرفة دي asbaabteedii waxa kamida macrifada lagu helayay alla ka cabsiga idan marka iyagu waxay sheegeen daraasadaha ay sameeyeen maskaxdu inay xagga macrifada iyo aqoonta u heelantay u hagaagsantay marka soomka oo qofku laasimo ama badsado quraankuna wuxuu inoo tilmaamayaa soomkii inuu alla ka cabsi keena alla ka cabsigaasina aqoontii uu ka saacido taanasku inoo sheego bay tijaabo iyaguna ku gaadheen 12 ka shay sida degdega aynu u dul marnay inagoo dhex galaynin qofkii doonaanada daraasada laga qoray uu faahfaahintooda baaran karo waxa aynu ka arkaynaa xigmad daweyn iyo faa'iidada ku jirta qofka caafimaadkiisa jirka iyo caafimaadkiisa ruuxdaba marka mar walba wuxuu ilaahay nagu waajibiyo waxaad ogaataa inay faa'iido ku jirto ama faham ama fahmin wuxuu ilaahay ku diidan khasaara ku jira allah inagu anfaco cibaadada iyo amalka dhamaantiina allah inaga aqbalo عسي شرفنا الله ينسيه صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وسبحان ربك